نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب باب من قف بأباب يهي حقق التوحيد توحيد كي لغسو ورميي حقيق نمدي سي ليمد دخل الجنة إنو جنة إلهي قليه ولبا أوكو قليه بغير حساب الآن dadka kale la xisaabaya isagu kuma bajiraba xisaab la'aan ayuu galaya tawxiidka sidoo ahaa qofka oo la yimaada jannada alluu galaya subhanahu wa ta'ala xisaab la'aan iyo qowli Ilaahi ta'ala ilaahay warkiisii uu yiri inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin inna ibrahim khalilur rahman kana wuxuu ahaaday buu rabbi yiri ummad buu ahaaday keligii baa kaana yacdilu ummad dhan buu keligii u dhigmayey qaanitan mid qunuud badan buu ahaa lilaahi ilaahay u qunuud badan oo u khushuuc badan xaniifan alle subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamay sifaadkiisa inay ka mid ahayd ibraahim xaniifka macnihiisuna waa maa'il can aladyaani albaatila diimaha baatilka oo dhan ka leexday ilaa diin illaahi alqayim u leexday walam yakun markaasaa markii la tilmaamay inuu muwaxid ahaa ربي هل كان سبحانه وتعالى وحكا أنفنا يؤدي يا نبي الله إبراهيم ولم يكن معهن من المشركين مشركين تكمد معهن طبعا عديسي أخلاق ديسا كمد معهن نقن كيسا كمد معهن هذا كيسا كمد معهن أفعاشي سكمد معهن سنة بمشركين تكون مشبهين باليره وقال تعالى الله وحيري والذين هم بربهم لا يشركون مؤمنين الليباني والذين واكوهم إيجو بربهم ربكوذا لا يشركون عن وحبل وذا جنين أحاديث أرنتا كور رميسنا حديث بوشيخ كسو قادن هنا حديث كايساقا هنا وحديث صحيح هويان عن حسين بن عبد الرحمن نكي لورنجري قال وحير كنت وحنها عند سعيد بن جبير ومن سادات التابعين كمداه أرضي عبد الله بن عمر يا عبد الله بن عباس يرقاس نسوق قاري أرضي ذا كمدا أيا فقال وحيري أيكم رأى الكوكب الذي أنقض البارحة أيكم تذكيب الله إياه وأقمركم بريه وحيري أيكم كي نبا رأى الكوكب حدقي حلي أركي الذي كاسو أنقض البارح حدقي وناي حلي دعي يا أركي تلو فقلت وحنيري أنا وقتي قاسي أنا قاسي وجيدي habeen waxay ahayd waqti dambe aniga soo jeeday laakiin Husayn ibn Abd al-Rahman wa min at-tabi'in a'imadii kamida wuxuu rabaa inuu cadeeyo sababta keentay inuu soo jeeday waqtiga oo aanan loogu malayn inuu cibaado Ilaahay ku soo jeeday subhanahu wa ta'ala faqultu waxaan iri ana thumma qultu dabadeed wa urraaciyay warkii oo waxaan iri amma inni lam akun fi salat أما إني أنقصه لم أكن وقتي معهم في صلاة وقتي أركي صلاة عبادة الله تونكم مجري وقتي عبادة الله مشغولكم معهين ولكني أنقصه حالي لذقت والي قنيني هل قوحوا هذا أي قنين وحباء قنين حالي قال سعيد بن جبير باوحوا كيري فما صنعت هدين لقو قنيني حالي وبهلكو قنيني محاسم يسي suntiisaan la seexan waaye waqtigaasi haddaba waxaan la soo jeeday xanuunkaasay ahayd Saciid ibn Jubayr baa ku raaciyay wuxuu ku yiri u raaciyay warka wuxuu yiri oo maxaa sameysay marka waa yahay xanuun baa ku qabsaday musiibo noocaas oo kale ku gaartay maxaa sameynaysaa qaala wuxuu yiri irtaqaytu
tufitaan baan dalbay in la igu tufo in la igu tufaan dalbay qaala wuxuu yiri fama hamalaka ala dhalik oo ina tufitaan raadsato maxaa kugu xambaaray baahida inta la eeg maxaa ku gaarsiiyay ama ha lagugu tufo ama yaan lagugu tufin soo ma ogid ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu ugu talagalay qadarkii rabbi subhanahu wa ta'ala sidiisa inuu ahaanayo ama dhakhtarad ama ha aadin ama kaniiniya qaada ama ha qaadanin sida rabbi ugu talagalay inay wax walba u soconayaan soo ma ogid in tawakkalkii baa la isku dhaafay tawxiidka sidaas weeyaan asalkiisu iyo macnaha loola jeeda halkan qofkii tawxiidka nooca xaqiiqsada inuu jannada ilaahay galayo ma hamalaka ala dhalik wa arrinka maxaa kugu xambaaray qultu waxaan iri hadithun hadathanahu ash-sha'bi arrinta waxa igu xambaaray xadiis uu nooga waramay ninkii la oran jiray shacbi Amir ibn Sharahil ninkii la oran jiray weeyaan isna wuxuu kamid ah rag odayaasha taabiciinta oo ninka la kulmay in ka badan 500 oo saxaabada ah ardayga Abdullah ibn Umar iyo ragaas la kulmay reer Kuufa ahaa Amir ibn Sharahil nin xifdi badanna waa ahaa marka wuxuu yiri ninkaas ii waramay oo arrintaas igu xambaartay قال وحير سعيد بن جبير وما حدثكم أو محيدين شيء سعيد بن جبير نفانتي سوى رير كوفويا وما حدثكم وعامر بن شراحيل محيدين شيء شعبي نكيل أورنجري قلت وحانيري حدثنا عن بريدة بن الحصيب صحابي الأورنجري بريدة بن الحصيب ينوغا والرمي قال إنه يري بريدة بن الحصيب أنه يسقو قال إنه يري لا رقية رقية تفتان وحلا ويديستا مجرته إلا من عين أو حمتنا محنون مويانه وحتفتان لو دونته وأن لبضا أهين مجرته قال وعير سعيد بن جبير قد أحسن من انتهى إلى ما سمع قد أحسن ونكسنا ذي قفي عن قيمي بذن ويان قد أحسن قفي عن ويان من قفوا ونكسنا ذي انتهى كل ماضي ويولكيسو أي النغوتي إلى ما سمع إنه كافتومه وأن حد قد بين وحي مغلي نصوصتي مغلي قفك كؤك هذا قفك قفي عن ويان ولكن سدقيسو بريدة بن حصيب وركيس انت تكبح وسحابي ويانه وركسي سريان كوشيكي دونا كاقا أنفع بذن ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وحاسن نوشيكي عبد الله بن عباس عن النبي بنوغا والرمي صلى الله عليه وآله وسلم قال أنه قال إنه النبي قيري عردت علي الأمم وحال إيسو بندقي أمذيه بالله إيسو بندقي وير النبي عليه الصلاة والسلام وحديث قوحوها النبي عليه الصلاة والسلام بهبينه كمذا والرياضي صلوات الله والسلام عليه مركز النبي عليه الصلاة والسلام وحلوصو بندقي أمذيه أردن عردت ولا إيسو بندقي علي أنيق الأمم أمذيه بالله إيسو بندقي فرأيت النبي ومعه الرهط وحان أركي الله إتسيي الله إيسو مرسيي النبي أي للسعدان ومعه أي للسعدان الرهط كوح رهط هو كوح ويان أم بدنين فرأيت وحان أركي سيدوك له النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان نبي هلقف كليا الله سعود النبي أي لبل الله سعوته وحن سيدا صوك الله يا إسو مريي وحرمي ومديسي أي ننجرين إلا مد كليا أما اللبك كليا أما كوح كليا إلا سعودان أم بيدو دنباسا إيسو مرتي مركي دنبي أي نبي وحيري صلوات الله وسلامه عليه والنبي ليس معه أحد وحبي ما يصوم مريبا النبي كلجي إسكا سعود ومديسي أنا وحبا وكرمين با ومديسي أنا وحبا وكراعين يضو سيدي أي تهي فإذا رفع لي وحال إيكر يلي سواد عظيم مذو آدي أدوين بدن معناها ضدكم مركي كر لقا أركو مضح وضع إسهيستوى حلوم ليا مذو مركا وحير النبي عليه الصلاة والسلام لين عنا وحال يقتو سييبه ضد إتراء وترى بدن ومدح وذا مذوية فإذا رفع لي وحال إيكر يلي سواد عظيم فظننت وحان موذي أنهم أمتي وحان لين ييبه إلا إنه دون وأمة هذه مركز النبي عليه الصلاة والسلام فقيل لي وحير وحل يغير أمة هذا معها هذا موسى وقومه
نبي الله موسى قوم كيسي ويان فنظرت وان ايغي فإذا سواد عظيم مذوغي ننعك لأيك بالغير النبي عليه الصلاة والسلام وافيريي mise madowgiiba madow ka sii badan oo ka tiro badan dad ah ayaaba loo kor yeelay nabiga kaleey salaatu wasalaam oo arkay faqiila li markaasa waxa la igu yiri hadhihi ummatuk ummadaada wata waxa tirada badan lama aragtaa waa ummadaadii weeyaan inta waxa weheliya qolo aan meesha taagnayn hadda oo tiradooduna ay tahay wa macahum 70000 70000 inta waxa weheliya oo aan hadda meesha taagnayn و70000 ويان يدخلون الجنة 70000 جنة الله يقليان بغير حساب ولا عذاب حساب لحسابين يانا مجرته عذاب أي صومر يانا مجرته بيكو سيدا يوسعدان بجنة الله يقليان سبحانه وتعالى عمل لغا حسابين يماله عذاب أي صومر يانا يأركيان ماله هو ما حي قيريدي يا جنة قليتان كيذي بواحد حي ماله inay soo dhintaan jannadana ay galaan waa ahlu tawxiidka weeyaan kuwa tawxiidkoodu uu saafida yahay barax tiran yahay kuwa saloo la jeeda markaas nabigu wuxuu yiri salaatu allah salaamu alayhi waxa la igu yiri 70000 kuwa waxa la socdo 70000 oo yadkhuluna aljannata jannada galaya bighayri hisaabin wala adab nabigu markuu inta sheegay salaatu allah salaamu alayhi saxaabadiisu la fadhiyay thumma nahad wa kacay wa sare istaagay فدخل منزله غريغيسي بو غلay nabiga kaleey salaatu wasalaam guriga ha gale 70000 kun yihiin waa tira aan badnayn marka loo fiiriyo ummadan saxaabadii waxay guda galeen in ay ka waramaan oo isweydiiyaan oo yiraahdaan 70000 kun yay noqon karaan فخاض الناس dadkiiba waxay dabaasheen oo ay dhex galeen in ay ka waramaan fi ulaaika 70000 kun فقال بعضهم dadka qaarkii waxay yiraahdeen فلعلهم ددكاسي وحا لغا يابا ان ايهين الذين كوا صحبوا النبي صلى الله عليه واله وسلم صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله لا صاحبي warkoodii waa dhamaaday Soomaha marka umada inteeda kale waxaan saxaabi ahayn ma yeelanaysa marka waa khasaaro weeyaan وقال بعضهم qaarkood waxay yiraahdeen war sida ma ahe annaga hadii aanu heli lahayn arintaasi wayba noo dhacan lahayde horaanu shirki oo la nimid gaalnimo ilaahay naga soo saaray ee waxa laga yaabaa inaan annaga ahayn ay yihiin alladina fala'allahum waxa la arkaa alladina kuwa wulidu fil islam islaamka lagu dhalay oo waligood ba gaalnimo arkinba kuwa inay yihiin baaba dhici kartaba annagu gaalnimo soo marnay sanamyaanu soo caabudnay balaayaanu ku soo kharibnay umrigeeni waxa laga yaabaa kuwa naga dambeeyay awlaad aan dhali doonay iyo waxay si dhali doonaan iyaga islaamka oo ku dhalan doonay wax kale aan garanaynin kuwaas inay yihiin baa dhici karta oo falam yushriku billahi shay'an waxbaan ilaahi la wadaajinin wadakaru ashyaa inta wax ka sii bedelana waa sheegan qolo walba meel bay kaga dhufatay arintii yadahayd 70000 kun ee jannada galaya wa ayo nabigu ma cadeeyay kaleey salaatu wasalaam inta markuu sheegayna waa iska anbabaxay meeshii waa ka tagay ra'yigu diin ma aha sideedaba ra'yi saxaabi diin ma aha ra'yi taabici diin ma aha ra'yiga sheekha diin ma aha haduunan asal kulahayn kitaabka Allah iyo sunnada nabiga diin ma aha oo haduu diin yahay ra'yiga saxaabada la qaadan laha meeshan ra'yigoodii markay iyagu gudbisteen oo waxay dhihi kareen ay dhaheen ayaa nabigu kaleey salaatu wasalaam uu soo baxay فخرج عليهم وحكسوا بحي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبروه وأشيغان وحيرا رسولك الله أرنتي أدنو شيكتي قولوا ذي الناس دا سيتيري قولوا كلو نقام إذا نسيدا سيتيري قولوا كلو نقام إذا نسيدا سيتيري أرنتها يدع بالنقوى الرسولك الله حالة سيتها سيسي وحجران فقال مركز النبي وحيرا صلوات الله وسلام عليه انت من ما دادية تضباطن كاكون جنة قليا هم الذين واقوا لا يسترقون أن تفتان ويدي سنين قالوا يقولوا فأندهين ولا يكتوون إلا قبؤ أن ويدي سنين ضبكي ويان ولا يتطيرون باصيسنا أن نقول وعلى ربهم رب قد أكل يؤون دشي سيتوكلون تلسارنيان
meeqa sharti baa loo sheegay 70 kun haddaad doonaysid inaad ka mid noqoto jannada galaya bigayri xisaabin wala cadaab xadiidka saxiixa fi saxiix muslim nabigu calayhi salaatu wasalaam afartaa sharti uu ku xiray laa yastarquun tufitaan aan weydiisanaynin walaa yaktawuun aanan isgubaynin walaa yatatayaruun baasaysi aan la imanaynin wacalaa rabbihim yatawakkaluun rabbigoodana tala saaranayaan istirqaha iyo iktiwaagu waa nooc min adawaa weeyaan nooc dawadii ka mid ah qofka inuu tufitaan weydiisto waa nooc dawadii ka mid ah inuu isgubana waa nooc dawadii ka mid ah nabiguna calayhi salaatu wasalaam xadiid kale wuxuu ku oranayay tadaawu cibaad allah war addoomadii allow isdaweeya maa min daa'in ilaa waanzala allahu lahu dawaa cudur ma jira ilaa ilaahay subxaana wa tacaala dawadiisa waa soo dejiyey calimahu man calima wajahilahu man jahila in la isdaweeyo waa shay shareecada islaamku ay qabto weeyaan laakiin qofku hadduu iimaankiisa iyo caqiidadiisa iyo tawxiidkiisu ay xoog badan yihiin oo markaa uu ka kaaftoomo iska dhaafaba oo uunan isdaweynin ilaahayna ku kalsoonaado subxaanahu wa tacaala sida abubakr sidiiq radiallahu tacaala canhu ardaa isagoo xanuunsana loo yimid markaasaa lagu yidhi dhakhtar ma ku arkay oo ma u tagtay haa buu yidhi muxuu ku yidhi baa la yidhi dhakhtarkaaga markaasuu wuxuu yidhi dhakhtarkaygii wuxuu igu yidhi inii facaalun lima uriid waa rabbulcizi jala wacala facaalun lima uriid waxaan doonaan samaynaya caafimaadka isagaa iskale waidaa maridtu maxay ahayd nabiy llahi ibraahim fahuwa yashfiin ashifaa biyadi illaahi caza wajal dhakhtarna ma hayo dawana ma hayso cid haysana ma leh ilahay gacantiisu ku jiraa subxaana wa tacaala laakiin haddii xoogaa iimaankaagu galabgalab yahay kaninigaaga iska cun ha iska dhaafin dhakhtarkaagana u tag lacagti intaa bixisana jarmalka aad laguma diidana shareecada islaamka kuma diidana dawada ilaahay waa soo dejiyey subxaanahu wa tacaala laakiin waxa laga hadlayaa waxay tahay qofka iimaankiisu yahay iimaan qawi ah amhaal aljibaal dadka ah buurahaas oo kale laga hadlayaa iimaankoodu yahay marka in la isku khaldamo ah laa yastarquuna tufitaanka aan weydiisanaynin lafdiyada qaarkood ayaa waxay odhanayeen laa yarquun aan waxba ku tufaynin iyagu lafdiga noocaasa shaad weeyaan sax maaha riwaayadaasi laa yastarquuna sidaasaa sax ah aan iyagu tufitaan weydiisanaynin inay wax ku tufaan dhibaato ma leh maxaa yeele nebigu calayhi salaatu wasalaam wax waa ku tufi wax waa lagu tufi karaa dhibaato ma leh laakiin inaad ka kaaftoonto oo aad tiraahdo maya uma baahni in laygu tufo taa weeyaan tan la sheegayo in la isku tufana iimaankaaga iyo caqiidadaada hoos uma dhigayso maxalu lkhilaaf weeye cinda alculamaa ridwan allahi tacaala calayhim ajmaciin hadal aad u dheer bay meeshaa ka yiraahdaan maxaa yeele fi bacd asaxaaba bal ummahaati lmu'miniin ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam yiri ha laydinku tufo marka nebiga calayhi salatu wasalaam reerkiisii see tufitaan u weydiinaya oo uu leeyahay baxa aada caruurtii cabdullahi bni jacfar buu nebigu yihi calayhi salatu wasalaam ha lagu tufo ummi salama gabadhii gurigeeda joogtay buu yidhi nabigu ha lagu tufo salawaatu ullahi wasalaamu caleyh marka istirqaha in qofka lagu tufaa ama inuu tufitaan weydiistaa inaysan ka mid ahayn oo arrintan aynan soo galaynin iyo wixii la mid a culimada qaybo ayaa qaba qolo kale waxay leeyihin maya macnuhu waxa weeyaan tufitaanka haba weydiiste waxa loola jeedaa waxay tahay inuusan ictiqaadin tufitaankan inuu caafimaad yahay isagu ee caafimaadku inuu biyadi illaahi caza wajalla ku jiro oo sida dawadii inay iyadu ku caafimaadinayso waa inaadan rumaysan inuu ilaahay u yahay kan caafiga wax caafiyo subxaanahu wa tacaala shaafiga inuu ilaahay yahay laakiin iyadu ay tahay sabab un min alasbaab ka mid ah walaa yaktawuuna aan isgubaynin gubitaanku isaguna waa nooc min caafimaadka ka mid ah nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu oranaya xadiid fi saxiixi albukhaari wagayrihi ku soo arooray dawadiina ilaahay wuxuu ka dhigay subxaana wa tacaala dhowr shay oo waxaa ka mid ahaa isgubitaankii shartatu mixjam in la istoobo iyo sharbatu casal in malabkii la cabo iyo kayigii weeyaan in la isgubo waakrahu liummatii alkay waynoo iman doonaa xadiidka isaga ummadayda waan u nacayaa gubitaan buu yihi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh soomaalida hore oga mahmahdayna waxay yidhaahdeen dab iyo maxaa la yidhi cudur meel ma wada galaan mid un baa haro macnihi mid un baa haro weeyaan waana wax jiro weeyaan oo diinta alle subxaana wa tacaala daway ka dhigtay marka cudurrada qaarkood ama badankoodaba inuu dawo u yahay baa meeshaa laga garanaya hum aladiina waa kuwa laa yastarquuna aan tufitaan weydiisanaynin
hadday xanuunsadaan walaa yaktawuuna gubitaanna aan weydiisanaynin walaa yatatayaruuna waxna aan baasaysanaynin baasaysigu waa tiro badan yahay baab dhan buu sheekhu u baabayn doonaa waa noo iman doonaa oo waxa la diidan yahay baasaysigu sideedaba diinta ilaahay ka mid maaha waxa la diidan yahay waxan inaad tiraahdo hebel baa u sabab ahaa nin saxaabi yimid oo nabigu yimid calayhi salaatu wasalaam isagoo dhahay rasuulka allo geelaygii candha ku wada dhacday neef baa u yimid isagoo candho qaba candhadii buu iga wada riday markaasaa nabigu ku yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh faman ajraba albaciira alawal oo isaga yaa ku riday marka waa yahay kuun baa sii qaadsiiyey baad leedahay soo ma kaa kale yaa qaadsiiye ka ugu horreeya yaa qaadsiiyey marka oo wax la isweydiinaya weeyaan maya caafimaadkanna ilaahay baa keena cudurkanna ilaahay baa keena waxba ha baasaysan adigu laakiin maalintaad wax baasaysato waa kugu dhacayaan ogow lanna waad saadsi weeyaan waa saadsanaysaa walaa yatatayaruuna aan wax baasaysanaynin wacalaa rabbihim rabbigooda keliya un yatawakkaluuna tala saaranaya ragga waa kala dhug badan yahay waana kala feejignaan badan yahay fursadana waa loo aad iyo aad loo kala heli og yahay faqaama cukaasha bna mixsan baa kacay cukaasha bna mixsan ninkii la oran jiray saxaabiga ahaa isaga iyo walaashii iyo kulli saxaabay ahayn ridwaan allahi tacala calayhim ajmaciin markaasuu kacay oo wuxuu yidhi faqaal udcu llaha an yajcalanii minhum rasuulka allo 70 kun ilaah ii bari inuu iga mid dhigo qaala nabigu wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh anta minhum waaba ka mid tahayba 70 kun halka go marka intaasaa kuu soo hartay alcaba nabigaa bixiyey salawaatu ullahi wasalaamu calayh ثم قام رجل آخر مد كلا كعي فقال مركز وحير ادعو الله رسولك الله إلهي إيبري أن يجعلني منهم تطباتا كاكون إنه يقدره فقال النبي وحير صلوات الله وسلامه عليه سبقك بها عكاش البابك وحرمي سبقك بها وحكا قهر مري كي أن بحين لها عكاشا كاقهر مري الباب كان وحيرين يهي ويان مرة بتاين أتكمد نقطها أفرتا حالها لقاهله أفرتا حالها لقاهله لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون من لقاه إليها إلهي وقدر يا سبحانه وتعالى فيه مسائل باب كان يسقى وحل لقى قادنا يا مسائل الأولى من ظهر وحويان معرفة إن لا أقنصد مراتب الناس ضدك إني مراتب يهين في التوحيد ضدك موحدين تايقوا موحدين وذا هذا توحيدك وألقوك لويه وألقوك لسرية قال أجرت الجنة قال بدون حساب ولا عذاب وموحدين تيا معايا iyagu waa dhameystireen tawxiidka intii laga rabay sidoo ahaabay uga soo bixeen marka qolooyinkaasi waa martabada ugu sareysa weeyaan الثانية النوع اللباد waxa weeyaan laga faa'iideysanayo masaa'isha ma macna تحقيق التوحيد كأي غايadiisu waa maxay غايadiisu waxa weeyaan qofka inuu og yahay wax allaaliya wixii ku dhacayna inay sabab ilaahay xaqiisa uga timid ay tahay wixii dhaafayna in ilaahay qadarkiisa ay ku dhaafeen inuusan u murugoonin wax dhaafay wax soo socdana inuusan isku hawlin maxaa yeelay hadii ilaahay u qadaro waa u imanayaan hami iyo murug iyo qami iyo wax haystaba malayso albaabkaaba waa iska xiray waxa soo socdana hadii rabbi igu tala galay waa ii imanaya waana helaya waxa murug ah iyo masaa'ib iyo balaayadana hadii rabbi subhanahu wa ta'ala igu tala galay waa igu dhacayaan hadii kalena igu dhici maayaan khayrkan iyo waxaan aad u degdegay sideed leedahay xoolaan rabaa iyo kanna haduu rabbi kugu tala galo waa ku siinaya oo waa helaysa hadii kale se waa lagu dhaafinaya marka waxa soo dhanba baabka iska xir weeyaan الثالثة تصدحات وحويا ثناؤه سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى أمانتي وأماني على إبراهيم وأماني عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام محل أماني بكونه أهنشه سوي إبراهيم لم يكن من المشركين إلهي بديده سبحانه وتعالى وحيري إبراهيم مشركين تكمد معهين وحي كنت سنة نبي الله إبراهيم أبو الموحدين وها موحدين تأبوه ضرنويا إلى خليل الرحمن لغة المامي الرابعة تنافراد وحويا ثناؤه إلهي إنه أماني على سادات الأولياء أولياء كوضا سرسرية إنه إلهي كو أماني بسلامتهم إنه كنبت قلن من الشرك إنه كنبت قلن dadkii sarsare ee awliyada aha ilaahay wuxuu ku amaanay inay ka nabad galeen shirkiga oo muxuu alla yiri subhanahu wa ta'ala walladheena hum bi rabbihim la yushrikuun kuwa rabbigooda marnaba u shirki yeelaynin weeyaan taas ilaahay ku amaanay subhanahu wa ta'ala الخامسة تشناد وحويان كون ترك الرقية إن لقتها أهانشها أي تهي
tufitaanka weydiisashadiisa oo laga taga iyo walkayid gubitaanka oo la weydiisto oo laga taga min xaqiiqi tawxiid inay kamid adoo heli karaya in iska dhaafto oo u dhaafto kalsooni ilaahay aad ku qabtay subhanahu wa ta'ala ma ajiznimo waxa ku geeyay lacag laan kugu dhacdayna ma aha dhakhtarka u tagi weysay ama dawada u gadan weysay adoo heli karaya inaad iska dhaafto kalsooni aad rabbi ku kalsoon tahay subhanahu wa ta'ala taasa loo jeeda السادسة تلحاد وحويان كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل وحاص إذا المحاكو كل منية لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وحصلا محاكو المنية وحكل منية توكل كيويا إلى والله تلسارته سبحانه وتعالى السابعة تتضباد وحويان عمق علم الصحابة إنو آد وحيل ديريهي عمق وحيل ديرانشها علم الصحابة صحابة علم قود إنو آد وحيل ديريهي لمعرفتهم وأغانشهود أي أجيهين أنهم يقول لم ينالوا ذلك إلا بعمل إن يسن أرنتا كجارين إلا عمل موي وقالوا إنك يقول يري ولعل ضدك النبي تلمام يوحى لغيابا الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا إنك الله صاحبي النبي أي لولي جدا بعد عكرتي هذين الثامنة تسديدات حرصهم على الخير كدذال كوذويا صحابة أي كدذال جيرين خيرك التاسعة تسقارات وحويا فضيلة هذه الأمة أمدا يضع فضلك إلى ذا حيث النبي عليه الصلاة والسلام وحي أمدها وأركي أمدنا أقول ربنا هذا إلهي تسيه سبحانه وتعالى هذين غلنا هيد بالكمية حق ترضى إيا والكيفية حق تيدي ترأي التيلا بضبا أمدنا يضع إلهي سبحانه وتعالى وفضلك السيه العاشرة تتمناد وحويان فضيلة أصحاب موسى فضلك إليه النبي الله موسى قوم كيسي ومعايا لي أمدني يضع ضدك كسو عيقوي حق تربنانت يكسو عيقين الحادية عشر تنكوية تبناد وحويان عرض الأمم عليه النبي إن الله صوبندقي أمضيه عليه الصلاة والسلام الثانية عشر تلبية تبناد وحويان أن كل أمة أمد والباه تحشر على صوكل منيا وحدها يذو كل جد مع نبيها والله سعده أمد والبا النبي جدي به جانوه أمد والبا النبي جدي به جانوه أمدن يدنا وحهرك عدون النبي الله محمد صلوات الله وسلامه عليه سيدا سويا الثالثة عشر تصدحية تبناد قلة من استجاب للأنبياء وحين تسينيس حديث كل قاضنا يا إن آدو يرتهي من قولوا استجاب الأنبياء أنبياء الله أجيبي قاركود إن لبأ أجيبين بالنبي إنه شيء صلوات الله وسلامه عليه إن لبأ أجيبين به يربي إنه شيء marka meelaha qaar meeshaasi waxa laga qaadanaya anbiyada qaarkood wax ajiibay inay san jirin ama wax ajiibay inay aad u yaraayeen nabiyo maahu raad wa nabiyo maahu alwaahid wa nabiyo maahu الاثنان والنبي ليس معه أحد wax la socda ba aynan jirin ba الرابعة عشر تنافري تبناد وحويان أن من لم يجيبه أحد يأتي وحده النبي كان عيدنا أجيب محو سمينيا ما أنت قيامها وإيمانيا كلجيس أنت موحدين أنت ومداس ري هبل يا أها نبي هبل يا الله سعدي كلجي عندنا مراعين سداس ويان تشاني تبنادنا وحويان ثمرة هذا العلم علم كان يسقى مرهن وليه هي فائدة وليه هي خيرك وليه هي علم الكتاب والسنة وهو عدم الاغترار بالكثرة وحين تهي أرنتا يضع عدم الاغترار إن لقوك تسومن بالكثرة حق بدنانشه وعدم الزهد في القلة يرانا إن لقى عررين إن يرانا لقى عررين بدنانا أن لقوك تسومن معنه وحويا نحرك ضد كان يسيوه هيستان توحيد كودو سيهي تاويا ودريا واحد يا والا ماشي متى على مرك حقنا كما حرنا أشخاصه ترانا كما حرنا حقوية يا الراعي بيكو حرنت يا الراعي بيكو حرنت يا حق عمقتا السادسة عشر اللي عيطبناد وحويان لقى قادنا يا الرخصة في الرقية من العين والحمة حديث بريدة بن الحصيب ويان إن يبنان تهيب على لقى قادنا يا إلا يسكتوا في كريو من العين إشي إيا والحمة حنوك إلا يسكتوا في كريو حنوك يكون يمد هدو يهي وحكو قنيني أما حنون يسكاك هردعي وحصنا إلا يسكتوا في كريو أي دليل يهي السابعة عشرة تضبية تبناد وحويان عمق علم السلف سلف كيدتك أها صحابة أرضي ضاها علم قوض السدو حيل ديران عبد الرحمن حسين بن عبد الرحمن
arrintii markii la weydiiyey ra'yigiisii kama qaadanin ra'yigiisii ma qaadanine wuxuu yiri maxaa kugu xambaaray markii la yiri xadiithun xadathanahu shacbiy yiri wama xadathakum markii la yirina wuxuu yiri can burayda ibn al-husayb annahu qaal radiyallahu ta'ala anhu warda arrintii waa iska tiiriyo waa isdhaafiyey wuxuu isaga leeyahayna ma ahay ra'yitiisa diinta alla meeshay kaga taalay iyo sanadka ay ku leedahayna waa u tilmaamay oo rijaashiisu ay sida u yihiin kal jibaal marka saxaabadii iyo taabiciintii iyo ragii ka dambeeyay cilmigoodu inuu sida ahaa aad u xeel dheeraabay ku tusinaysaa liqawlihi uu yiri sidoo kale Saciid ibn Jubayr markii loo sheegay isaguna qad ahsana man intaha ila ma sami'a wa wanaag falay qofkii ku dhanaaday ee ay noqotay amalkiisa in uu ku intihoodo wixii uu maqlay walakin kada wa kada lakin sawuu raaciyay in laga haboon yahay arintu sameeyay حسين بن عبد الرحمن فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني فعلم وحال لقى أغاذي الرنت أيضا أن حديث الأول حديث كهوري بريدة بن الحصيب لا يخالف الثاني حديث كاللبادي عبد الله بن عباس إنه سن خلافين والله بضب أيهن لما بنان ومعنه هو معي توفيتانكي واللقو أقول يهي دودي واللقو أقول يهي إنا إزقبتي واللقو أقول يهي واحد بنان ويان لكن قف إيمانكيسو yahay kal jibaal ma tahay tawxiidkiisu weyn yahay ma tahay waxa ku haboon inaad iska dhaafto dan ma ka qabtaa 70 kun inaad ka mid noqotid ha iska dhaaf iimaankaagu heerka ku gaarsiiyay way kalsoonida rabbi marka labada waa banaanta hadaa tan doonaysid inaad ku amal fashana waa banaantahay hadaa tan ku amal fashana waa banaantahay labadaba adigu meel daran yeelan kula aadin tofitaanka aad weydiisanayso meel daran yeelan kula aadin sida dadka qaarkii laga sheegay الثامنة عشرة السديدية تبناد وحويا بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه بعد السلف سلف كسيدي أقفوا قايين عن مدح الإنسان قفك إنه أمانه بما ليس فيه وحيونا درجة ونقارين إنه يسكو أمانين ياد أقفوا قايين ومعنه هو محي أنا وهد نك كلي سداس أهبانا هاي مين أورنجرين أد بيقفوا قايين وحصوا يدل إنه يس أمانان أد بيقفوا قايين ومحاو الدليل وحاو الدليل أنك لا يرى هذا حسين بن عبد الرحمن مركي لا يري حاليا سوجدي حد قامركو دعيي أنو يري لكن وحو الراعي كما سوجدين صلاة عبادة الله حنون إقابتي درتيدا كو سوجدي أدبي سقفو قيدتكو إني ملايانا ورشيخ يهب لها إن هبي النذو ساعدها سي عبادة الله كو سوجدا تاسو يسكفو قيني التاسعة عشر وحويا قوله يري أنت منهم النبي عليه الصلاة والسلام عكاش وكيري علم من أعلام النبوة علمي كمذا علمي النبي لماذا ويان إلهي أبري النبي صلوات الله وسلامه عليه إلا من ارتضى من رسول غيب كي اللي يريب كمذا هي إلهي سبحانه وتعالى غيب كيسا إيا علمي أنا نعيذ نقرن إن إلهي لك اليوبي أنبيادي سو غيب كمذا قارسيي كاسانا كمذا ونقل يراه عكاش بن محصن تضباطا كاكون جنة قال يا حساب الآن يا عذاب الآن سير النبي كو أقاذي إلهي وأقا والرمي سبحانه وتعالى طلباتنا waxa weeyaan fadliga uu leeyahay ninka la yiraahdo Ukash ibn Mihsan ayaa laga qaadanaya takoylaatanaadna waxa weeyaan isticmaalu al-ma'aarid in sarbeeb la isticmaali karo inay banaanta warkii in sarbeeb lagu gudan karo inay banaantahay ثانية عشر والعشرون waxa weeyaan xusn khuluqihi sallallahu alayhi wasallam nabiga alayhi salatu wasalam akhlaaqdiisu siday u wanaagsanayd oo waa maxay ninkii labaad ee istaagay yiri rasuulka Allah anna ilaahi ii bari ma oranin maya وهذه ما يلا به لها قال كلا إذا صام غيق له يسمى النبل النبي قال الله يفيري ما النبي عليه الصلاة والسلام الباب كاسر نم وحوك حري محل يري سبقك بها عكاشة كو البؤ يمادنا الباب كاس وحرية معني سبقك بها عكاشة خلاص الباب كاس وحرية مرك النبي عليه الصلاة والسلام حسن الخلق ويتاسنا حسن الخلق ويان هذا يا كاغد انتيو محاذا هيدي يا اسمه ديو وركا ولا قفي عينه وركا ولا قفي عينه أخلاق ذا ونكسن معه باب الخوف من الشرك وحو بابيها إن قفك كعب صدو شركي إنه كعب صدو ولقى إنا شركي كل عضو كعب سويا معنى هذا وقول الله عز وجل لأيري إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إن الله لا يغفر مردافه أن يشرك به إن إسقى وحل لو ذا جي إلهي مردافه
ويغفر سوى ضافا إلهي ما دون ذلك وحي انت كسو هري لمن يشاء كودونو إلهي ضافا ذنوبتك لا يا معاصيك لا أردن إلهي وضافا قف كودونو ضافيا لكن شركي قف إلهي ضافيا مالي سبحانه وتعالى مربى هدو شركي كل دعي قفك إلهي ما بضافا والشركي waxa kaliya lagu dhaafi karaa waa inuu tooba la yimaado tawxiid la yimaado dib dambe xaaladiisa ay u wanaagsanaato weeyaan shirkiguna waxa weeyaan min a'zami dhunub 'inda Allah 'azza wa jalla dambi la yimaado kan ugu weyn weeyaan Ilaahay agtii subhanahu wa ta'ala wa hadith warinayay Anas ibn Malik ummina Aisha Abdullah ibn Abbas oo laga wariya qowl uu leeyahay Salman al-Farisi hadithka bi majmuu' turuqihi wa hina tusinaya asl min usul ahadith an-nabi sallallahu alayhi wasallam inuu ku hayo حديث كاسوي حورنا الدواوين عند الله ثلاث ديوان هذا إله أكتيس سبحانه وتعالى ذنوب تلقورا سدح ويان ديوان إله سبحانه وتعالى مرنا ما ودافه وكشرك القورا ويان أيضا أنا دليله إن الله لا يغفر أن يشرك به إلهي مرنا ما ضافه سبحانه وتعالى إن وحل له ذاجيه وقول الخليل عليه السلام إن لقفوا هذا آدي الله عرره وحين تسينا يا إلهي سبحانه وتعالى مركو نوغا ورمي نبي الله إبراهيم ومحير نبي الله إبراهيم إساقا كفو هذه وعرتي سي إلهي أويدي إني كفو هذان وحير واجنبني إله إقفو الشركي وبني عرورتي ذويلشا عن دارينا إله كفو أن نعبد الأصنام إن صنم عابدنا إله نقفو أني عويلشا إذا إن نبي الله إبراهيم يقع الروله الله بأمبو لها إسماعيليو إسحاق أمبو لها الله بدا كليو إساقو دالي عرورتيسي unbaa ilaahay subxaana wa tacaala faracoodii iyo tarankoodii badiyey mooyaane isagoo labada keliyu ka tegey marka awlaadii in loo duceeya meesha laga garanaya waalidku inuu awlaadiisa u duceeyo tawxiidka ugu duceeyo toosnaanta ugu duceeyo diinta ugu duceeyo ilaahay u bariyo subxaana wa tacaala ducada waalidkuna waa mustajaab weeyaan ducada waalidkuna waa mustajaab awlaadooda ay u duceeyaan marka in awlaadii loo duceeyo waxa loogu duceynayana adduun aysan noqonin iyo inuu jaamacada ka baxay waxa loogu duceynaya inay noqoto inuu tawxiidka Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku sugo xalal haduu muwahhid yahay adna waa ku anfacaya ummadda islaamkana waa anfacaya lafihiisana waa anfacaya laakiin haduu mushrik yahay inta soo shahaada haysto wuxuu waxtaraya male lafihiis uu khasaaray khasira ad-dunya wal aakhirah dhalika huwa al-khusran al-mubin nabiy allah ibrahim wa ka hadaba allah uu yiri subhanahu wa ta'ala markuu ka waramaye nabiy allah ibrahim waxa idin kugu sugnaaday baa la yiri أسوة حسنة إن لقد ضيدك ضيشة ونكسن إن داد فديسة إلهي بري أولاد دينو إلهي كو إصلاحي وأذيك كو إصلاحي وتوحيد كإلهي دين كو حقه وجنبني سوى النبي أبو إلهي بري يا خليل الرحمن إلهه إقفوق الشرك وبني عرور تيدنا إلهه كفوق أن نعبد الأصنام أنبياء هين هذا لبدو كتغينا إن النبي الله إسماعيل النبي الله إسحاق ويان عرور تيزون أنبياء الله يا هايان إلهي وهذا نبريه وفي حديث أنه حقص أروري أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر أخوف ما شيء كان أن أقعب سبضنا هي أخاف عليكم دشي إن حق هذا وحويا الشرك الأصغر شرك جيرا ما هي شرك قوين والأقيا هي سنم لو سجوده أو الله بريو أو إلهي لا حريري شرك وين ويكاسي لكن شرك وحاجرة مساجد ذي يميلها الله متكال لقد حلو كاسان آدي إذن كقبقنا يا أبو لي النبي صلوات الله والسلام عليه ومعناها مساجدنا ولجدنا وحيتها ضدك مسلمين تدحدوا الله لقى هلا شرك قاسي ومحي الشرك الأصغر شركي يرى يسول من أي فسئل عنه النبي قال له ويديه فقال مركز وحيري الرياء ويان استسقي ويان صلاة سوق ليا صومك سوق ليا قرآنك سوق ليا وحول سوق ليا إنه قفك ضدك استسو حديث كنا واتينو تلماني أول ثلاثة تسعر بهم جهنم سدح ذا أجوهر جهنم الله جوهرين أيه وحكلا جهنم الله جوهرين ماي أنت عندك كلا الجلين أو دم بقى يجل الجلين أيه أول من تسعر بهم جهنم ثلاث سدح ويان ووحي أهايان قفك قارئ أهاي حافظك أهاي عالمك أها كي يسقو دقسك أهاي مالها خيرك وحكوب بحين أيه كي وضع على أول أنت نفتي سوهري لكن مقصد كودي دنتو ذا أهين لوجه الله الرياء باكجري استصبا كجري وحي وحنو سمينيين marka shirki weeyaan allahna arinta uu lahaa subhanahu wa ta'ala ee ilaahay uu lahaa bay khalqiga kula lamaaninayeen in lagu amaano oo lagu sheego
وعن ابن مسعود وحلق وري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وحير من مات قفك دنت وهو يدعو من دون الله ندا يسوى إلهي سكيدي سبحانه وتعالى وذي أسمينيا دخل النار نار تقليا رواه البخاري إلهي سكيدي سبحانه وتعالى وذي يسوى أسمينيا إلهي عدل حريرينيا هدور دنت النار تقليا والله يقول سرده اللي أولياء القلدي نهيسي إلهي أولياء الله كوي اسكو حريي إلها ما بلوتي كرا الله سبحانه وتعالى إلا إن يقل مرم ويانه يكوي لها ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى سوم اسكو مد ما همرك كوازنا أصنام بي لهايين إلهي بأن نقول دواننا سبحانه وتعالى كوانا بن آدم ويان وحي أسي مريان إلهي بن آدم إيو وحن لقرنين جني وحن لقرنين بإلهي أسي مران إيا شياطين مركوا اسكو مد ويان وح فرقه ودحيا ملح وعن ابن مسعود وحلق وري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحيري من مات قفك دنت وهو يدعو إسقو بريايا من دون الله إلهي سكيديسا ندا أما إسقو يالي إلهي سكيديسا ندا وذي إلهي عدل الله مانينيا إلهي عدل الله مانينيا سبحانه وتعالى دخل النار نار تقليا رواه البخاري ولمسلم وحوري عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوري من لقي الله قفك الله كل ما إلهي لا يشرك به شيئا يسوى وحبل وذا جنين إلهي دخل الجنة جنة قليا قفك إلهي لك كل ما سبحانه وتعالى يسوى وحبل وذا جنين جنة قليا ومعنه هو معي معاصدي سنتي دون تهلا كاتم حي لي بفضل التوحيد وياه توحيدك يا عقيدتي سصوبان درتيدا يا إلهي وقل الله سبحانه وتعالى مربع دوم واحد دنك كلا عكسيgeedu waa maxay qofka salaadihiisa iyo soonkiisa iyo cibaadadiisa ay aad u tira badnaayeen laakiin xagga baryadii iyo xagga istiqaafadii iyo xaggi dhan walbaba ilaahay la wadaajin jiray subhanahu wa ta'ala awliya iyo wixii lamida kana ilaahay wuxuu ka soo qaadaya malay salaadiisa iyo siyaamkiisa معايا أنا أغنى الشركاء عن الشرك ربي وتيوري سبحانه وتعالى حديث القدسي في موطئ إمام مالك وغيره كساروري من لقي الله غفك إلهي إلا كل ما لا يشرك به شيئا يسوى وحبل له وذا جنين دخل الجنة وقليا ومن لقيه غفك الله كل ما أله يشرك به شيئا يسوى وحبل وذا جيينه دخل النار نار تقليا فيه مسائل باب كاسي مسائل باكو ساروري الأولى من ظهر وحويان الخوف من الشرك weligaaba inaad ka cabsato shirkiga amalkaaga inuu soo galo niyadaada inay ku soo dhacdo shaydaanka waa kugu soo ridaya iska tuur ka kacde waxa laga yaabaa adigoo toosan oo quman inuu amalkaaga inuu fasaadiyo doonayo oo ugu yiraahdo waxa uu sameynaysi istus weeyaan muxuu rabaa qofkii aan cilmi lahayn oo aqli lahayn inuu isaga tago wixii saasuu doonaya ka kacde waxaan ilaahay dartiisa u sameynaya waana sameynaya كاكع كله محايا لي عمل كذا مركز سمين يسيد بوح الربا إنه كاعيريو الخوف من الشرك شركي إن لقى عرره طلبات وحويا أن الرياء من الشرك استسكي اسم قشينتي ضد قال اسم قشيني هل لقوا أركو هل لقى شيء هل لقوا مغلو يوحي الله مداهبة من الشرك الأصغر ويان أن الرياء من الشرك ويان الثالثة وحويا أنه من الشرك الأصغر شركي رأينا كم التهولبة الرابعة وحويا أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين وحا عبسيدة بدن الله عبسنا يا إني تهي ضدك صالحين تا معايا صلاة دي إيا صيامك إيا عبادة ربي أردن بكاسوك ليا مال والبو حقاك سنيد صدقات دي وسوق ليا صلاة دي وسوق ليا مساجد فردقاقي وسوق ليا مالهانا لغاها لا يسوق هل قاسو كو وريقيزنا يا شيطان إنه غفكن كفس هذه والبو ربي يقول وان الله سبحانه وتعالى الرابعة تنافرات وحويا تنشنات وحويان قرب الجنة والنار قفك سيدي يقول له يهين جنة دي النارتي معاك حاجة جنة دي توحيد بك حاجة النارتينا معاك حاجة توحيد قاصد لنا عساك تويا بس وصيدا كل ما تيد مركا وصيدا كل ما تيد انت سكاحيت تلحاد وحويا الجمع بين قربهما في حديث واحد لو انشهوا ذا درتي إنه النبي كل جمعية صلوات الله وسلامه عليه الحديث وكليه من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار انت أصاب اللقوء كييبا
من مات وهو يدعو من دون الله ندة دخل النار. عبد الله بن مسعود baa wuxuu oran jiray xadiidka markuu sheego cagsigeedana waa sax oo haddii aan doono waxaan dhihi karaa ومن مات وهو لا يدعو مع الله إلها آخر دخل الجنة. وهل يراد بل meelaha qaarkood waa marfuuc ila النبي صلى الله عليه وسلم lafdi noocaas oo kale ah. السابعة تتضباد waxa weeyaan أنه من لقيه لا يشرك به شيئا أنه من qof allaaliyo qofkii laqiyahu la kulma alle لا يشرك به شيئا isagoo waxba la wadaajinayn cibaadadiisa دخل الجنة jannadu gelaya. ومن لقيه يشرك به شيئا qofka ilaahay la kulma la kulanka ilaahayna waa geeridii weeyaan. qofka ay naftu ku soo xaadirtay sakaraadka u yimaada isaga oo mushrig ah دخل النار. wixii inta ka dambeeyana waa naar weeyaan. ولو كان haba ahaado qofkaas mushriga ahi min أعبد الناس dadka kan ugu cibaadada badan min أعبد الناس ba ha ahaado oo macnuhu waa maxay macnuhu waxa weeyaan qof xoolihiisii oo dhan wadada ilaahay saa ugu farriqaya ha noqdo ama qof maalin walba 500 ragcadood tukanayo laakiin 500 ragcadood uu tukanayo maxaa niyadiisa ku jira inuu dadka istuso waxba ka soo qaadi maayo ilaahay subhanahu wa ta'ala maxaa yeelay xadiidkaas ay noo tilmaamaya awwalu man tus'aru bihim jahannam thalath nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam walaw min a'badi an-nas baha hada marka الثامنة تسديدات وحويان المسألة العظيمة مسألة وين وآه سؤال وين ويان إلى الله برق وين إله إلا ويديسنا يوامحي سؤال الخليل له نبي الله إبراهيم خليل الرحمن إلهي وحو ويديستي ولنبيه وقاية ولبنيه عرورتي سبا وقاية عبادة الأصنامين إلهي كإلالي أو كرنور إلهي كالليحيو إني سنم عابدان تاسو إلهي كبريه سبحانه وتعالى كما قنقليه ويديستي مركا أرنتو أرن وين ويان وح سهلا ما معنه. التاسعة تسقالات وحويان اعتباره بحال الأكثر أو إن أي أرنتو تهيمد كوعد ويان أكثر يدتك بدنكي بين شركك كل عين أو معي آيات دي كلو ويان ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. نبي الله إبراهيم وحو أركي اعتباره وحو كعبري شركي بحال الأكثرية دتك بدنكي أنا كل عين دتك بدنكي أنا كل عين زبنكي نبي الله إبراهيم كليا معه زبن والبوا سيدا سويا وقت والبوا سيدا سويا دتك بدنكيزو شركة قاسي كجيران ويا لقوله وحو الدليل ويري ربي إنهن أصنامتي أضللنا واباديين كثيرا وحبدا ومن الناس دتك كمدا إن بدن دتك كمدا واباديين ربي. العاشرة هذه أصنامها هيد ما أنت قبور ويان أو اسكمدون. العاشرة تتبناد وحويان فيه تفسير ما شاسيت وحا إن لعديه ومن لعديه بكجرته لا إله إلا الله وحا ماشا كعد لا إله إلا الله ويان كما ذكره البخاري. 11 وحويان فضيلة من سلم من الشرك فضل أوليه هي قفك كنا بتقلي شركي فضل أوليه. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله باب الدعاء وبريدي إيا يريتانكي لوغو يريدتك إلى شهادة إني قران أن لا إله إلا الله ألم ويا ألك لو حق لو عبد إنو سنجرين إيا وقول الله تعالى ألا أيري نبي الله محمد قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني قل وحد هذه تا سبيلي ودضي ذي ويان أدعو الراعية أمو أغيريا إلى الله إلهي بندتك أغيريا على بصيرة على علم ويقين ويان أنا أنيقا إيو ومن اتبعني هذه سبيلي وحلو لجد وكلمة لا إله إلا الله أهيد إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني لا إله إلا الله إيو وحا أي موجبها أي واجبين إيسو إيو وحا أي الريب إيسو تاسلو لجد على بصيرة أنا ومن اتبعني أنيقا إنتي الرعضيبة. عن ابن عباس وحا لقورني رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل بن النبي قدري صلوات الله وسلامه عليه وقرن إنسان معاذ بن جبل أبي موسى الأشعري وإسلا الصعدة النبي قدري صلوات الله وسلامه عليه ودنك يمن بالله دري سيدو كان النبي عليه الصلاة والسلام مركلنا وحي دري علي بن أبي طالب وحي كهري علي بن أبي طالب يا خالد بن وليد ويسون نقضين حج الوداع وقت قديم أهيد كدبنا النبي وحي دري صلوات الله وسلامه عليه معاذ بن جبل أبي موسى الأشعري وإسلا الصعدة معاذ بن جبل مركي للدري
buu nabigu calayhi salaatu wasalaam la hadlay dardaarankan nasiiyey isagoo maqan buuna dhintay mucaad ibn jabal nabigu salawaatullahi wasalaamu calayh mucaad ibn jabal oo yaman ku maqan yuu nabigu dhintay salawaatullahi wasalaamu calayh lama bacatha mucaadan ila alyamani nabigu markuu mucaad yaman u dirayey qaala lahu wuxuu ku yidhi inaka adigu mucaadow ta'tii waxaad u tegaysaa qowman dad min ahli lkitaab yamantu waxay ku dhaantay jaziirat alcarab inteeda kale ahlulkitaab bay ahaayeen yahuudna waa ku noolayd masiixiyiinna waa lahaayeen oo masiixiyiinta waad garanaysaanoo abraha waa tii uu deganaa halka iyo yaman oo loolan baa ka dhaxeeyey jaziirat alcarab la isku haysto iyagoo asnaamtay caabudi jireen waxa isku haystay waxay ahayd yahuudda iyo masiixiyiinta oo ay lahayd qolo walbaba annagaa iska leh annagaa qaadanayna dhul ay haystaan oo ay xoog ku haystaan iyo waxay ahayd in iyaga u khidmaysa oo iyaga un markaa siisa wixii xoolo ah oo walaha iyaga u dhiibatay sidaasay ahaayeen kii ka hor yimaadana haraantidaa lagu dhufanaya waa la dilay adillana yani dadka kuwa ugu dullaysan bay ahayn adilla annaas bay ahaayeen ilaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu rasuulkiisa usoo diray salawaatu ullahi wasalaamu caleyh nuurka halkaa ka soo baxayna uu ka takhallusay waxaasoo idil oo uu tirtiray maxaa yeelay dhankan yemanna waxaa haystay dadkii xabashida ahaa ee masiixiyiinta ahaa halkaasay ka soo duuleen yuhuuddina waa iyaga yeman deganaa ee halkaa yimid inay diintooda ku fidiyaan iyo wixii la mid ah iyagoo soo cararayna waa la yidhaahdaa taariikhdu sida ay tilmaamayso loolankaasaa ka dhexeeyey dhankan kale qolooyinkii romanka ahaa waxay ka soo duuleen roman iyo halkaa ilaa ay soo degeen dhulka ciraaq kadibna ay yimaadeen ilaa iyo sham oo halkaa ilaa iyo yowmina hada qalcadahoodii ay ku yaalaan xoog ay ku qabsadeen taariikhdu sidaasay ahayd marka nebigu calayhi salaatu wasalaam mucaad ibnu jabal buu dirayaa dhulkaa waxa ka jira ayuu usii sheegayaa qofka daaciga meeshuu joogay inuu ogaado waa laga maarmaan waaqaca maanta aad taagan tahay ha ku cabirin oo ha ku xisaabinin dhulka aad joogtid dhulkii aad joogi jirtay ha ku xisaabinin maxaa yeelay waa kala duwan yihiin xaaladdu waa kala duwanta qofka daacigana waa tabiib weeyaan cudurrada dhulka kuleelaha ku dhaca iyo cudurrada dhulka qaboobaha ku dhaca waa kala duwan yihiin sooma sidoo kale weeyaan tabiib baa tahay waa inaad og tahay dadka aad la joogtid sidaa tibigooda iyo dawadooda uga qayb qaadan lahayd dhulka mucaad uu ku noolaa oo uu ku barbaaray wuxuu ahaa dhul mushrikiin ah sanamkaasaa la wada caabudi jiray qisadii mucaad ibnu jabal iyo islaamnimadiisii iyo qisadii camar bni jamuux iyo wixii la mida waa macruuf weeyaan suwar min xayaati saxaaba soo midan soo qaadan ayib macruuf weeyaan bii'adaasuu ku soo koray bii'ada loo diraya laakiin waa ka duwanta waa in la sii baraa nebigu calayhi salaatu wasalaam warbixin buu siin jiray marka waxaa lagu yihi mucaad ibnu jabal inaka adigu ta'tii waxaad u tegaysaa qowman baad u tegaysaa min ahli lkitaab qoomka ahlulkitaabka ah falyakun ha ahaado awala maa waxa ugu horeeya tadcuuhum aad ugu yeerayso shahaadata ilaahi xaggiisa shahaadata an laa ilaha ila allah waxa ugu horeeya iyo hawsha ugu horeysa qoladan ay asnaam ma caabudaan waa ahlulkitaab yahuud iyo masiixiyiin waa ku dhan yihiin meeshan labadaa qolo weeyaan waxa soo raaca waa qolooyin yaroo carbeed oo iyagu shirkigoodii balaayadii isaga jira laakiin waa ku tira yar yihiin labadaa qol aad ugu tegi doontaaye waxa ugu horeeya hawsha ugu horreysaad qabanaysa ha noqoto awal maa tadcuuhum shahaadata an laa ilaha ila allah ilaahay mooye alle kaloo xaq lagu caabudaa inaysan jirin inay qiraan wa fii riwaayatina waxaa ku soo arooray ilaa an yuwaxidu allah inay ilaahay waxidaan faidaa hum ataacuu lidalika hadday taa kaa ogolaadaan oo arrinta ay ogolaadaan faaclimhum ogeysii oo waxaa bartaa ana allaha alle bacda tawxiidi iftarada calayhim korkooda inuu ku farad yeelay 5 salawaatin 5 salaadood fii kulli yowmin wa layla habeen walba iyo maalin walba 24 saacadood 5 salaadood baa lagaa rabaa 5 salaadood baa lagaa rabaa fainhum ataacuu lidalika hadday taa ogolaadaan faaclimhum ogeysii ana allaha alle iftarada calayhim korkooda inuu ku waajib yeelay sadaqa inuu ku waajib yeelay sadaqadaasoo tu'khadu laga qaadaya min aghniyaa'ihim dadkooda tanaadka ah ee hodanka ah ee xoololeyda ah baa laga qaadaya faturaddu waxaa loo celinayaa calaa fuqaraa'ihim dadkooda saboolka ah ee faqiirka ah ee cayrta ah ee faramaran qolooyinkaasaa loo celinaya fainhum ataacuu lidalika zakadii hadday ogolaadaanna lidalika arrinka ay ogolaadaan fa iyaaka adiga iyo waxaan kaaga digaya wa karaa'imu amwaalihim in isagii baa amiirkii ah waa inuu zakadii soo ururiyo zakadu ururinayo marka inaysan noqonin
xoolaha shayga ka dhaqaaqayo inuu yiraahdo ka keen haday geel leeyihiin qolada geel uu ka ururinayo 5 neef markay gaartaba neef ari baa laga qaadaya iyo wixii sida uga sii badan weeyaan inuusan dhihin neefkan ku jira ee ka dhaqaaqaya xoolaha keen haday loo tahayna inuusan dhihin neefkan ka dhaqaaqaya keen haday ari tahayna neefka ka dhaqaaqayo inuusan ka qaadin nabigu alayhi salaatu wasalaam waxaan kaaga digayaa iyaaka adiga iyo wa karaa'imu amwaalihim xoolahooda kuwa kariimka ah wan wanaagsan ee dhaqayada ah inaad ka qaadid taasan kaaga digayaa wattaqi iska ilaali min da'wati al-mazlum wattaqi iska dhowr oo ka ilaasho weeyaan da'wati al-mazlum kala dhulmiyay alla barigiisa maxay yeelo qofkaasi waa dhulmisay xoolihii ka dhaqaaqayay zakahadaad oga qaado qofkaasi waa dhulmisay ilaahay buu bariyaya hadduu ku alla bariyana bas weeyaan fa innahu maxayalay qofka laysa baynaha bariyadiisa ma ahaanin iyo wa bayna allahi ilaahay xaqiisa xijaabun wa xijaab u dhaxeeyo male qofka alla barigiisa iyo ilaahay wax xijaab u dhaxeeyo malaha iska ilaali marka walahuma waxay warinayaan bukhari iyo muslim an sahl ibn sa'd as-sa'idi radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala yawm khaybar nabiga alayhi salatu wasalam baa wuxuu yiri maalintii khaybar la u'tiyanna ar-raayata raayada waasiinaya iyo calanka waxaan u dhiibaya gadan berri rajulan yuhibbu allaha wa rasulahu alla iyo rasuul jecel oo yuhibbuhu allah wa rasuluhu alla iyo rasuulna ay jecel yihiin isagu wuxuu jecel yahay alla iyo rasuulna waa jecel yihiin isaga yaftahu allah ilahi wa kufraya ala yadayhi gacantiisana ilahi kufraya subhanahu wa ta'ala wa sadh fadli weeyaan kow nabigu wuxuu cadeeyay salawaatullaahi wasalaamu alayhi qofkaasi inuu alla iyo rasuul jecel yahay intaas aaba ugu filnaan lahayd sooma waxa la raaciyay alla iyo rasuulna waa jecel yihiin isaga waa hawl kale soo korodhay weeyaan waa fadli kale weeyaan waa wax la tamaniyo waa wax la doono waa darajo la raadiyo tusaddexaad baa lagu daro waxa la yiri ilaahay gacantiisu buu ku furi doonaa subhanahu wa ta'ala waa bishaaro kale weeyaan فبات الناس وبري وير النبي عليه الصلاه والسلام لو اعطينا الرايه غدا بري بان بخينيا علنك هوغانغا بري بان ديبيا علنك ciidanka aan bixin doono hogaankiisa qof baan berri u dhiibi doona maamulka saddexda arrinna leh saddexda darajo leh saddexda fadli leh qof walba waa raadiyo marka inuu isaga noqdo qofkaasi fabaata الناس dadku waa bariisteen yadukuna laylatahum ayyuhum yu'taha qofka la siin doono iyagoo raadinaya jecel Umar ibn Khattab wuxuu oran jiray waligay imaara ma aanan tamanin illa habeenka mooyee ما أنا نهين إله يا كودي ويا كادجا إلا هبين كام وياني حيل هذا فضل الله الشيء ما وحي رهين وحلا تمني ولا الراديو ولا الضندونة ويته فلما أصبحوا مركي وابريستين غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله صوك الله هي كلهم دمانتوت صحابة دي مد والبا رسولك كسو أقدوا هذه واستوسي النبي عليه الصلاة والسلام هاي رسولك الله أنه وائي كان تلو ما هي قفك الشيء يسي شري أنه وائي كان ما هي يرجو يسقو رجينا يقف والباب أن يعطاها إن إسقى الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام منا ماشي بجوجين أيوه دواقي النبي عليه الصلاة والسلام وحي علف إيه كو قدر نسيدا ويان عندنا كامل علين كريس جوجيتنا كم حرنا مغنانشان عبك هاجم الضاهيان وحي لا يكون تلقى الواقو إيمانيان نمن ماشي بجوجين بالنبي دواقي صلوات الله وسلام عليه فقال وحيري أين علي بن أبي طالب ما بعرف هرت علي بن أبي طالب انت ساك سهر مرتكم مجرى فقيل وحل ير الرسول قال هو يشتكي وحنون سيها عينيه انه بلغ هيا فارسلوا اليه عد بي ودرينا وحل ير النبي كرادين يا علي فوتي به النبي والله كان علي انه بو كدقاق الله وحما اركو فبصق في عينيه النبي كو عنوف كغتفي انده النبي عليه الصلاه والسلام بعنوف انده كغتفي ودعا له النبي الهي بو بريي فبرأ علي وككعي حنونك مركيبه كأن لم يكن به وجع وحبد مدة يسوون حنون ولجيبه قبل نبا فأعطاه الراية النبي على كودي صلوات الله وسلامه عليه فقال مركز وحكيري أنفذ على رسلك آيرت هذا الصعوبة بح حتى تنزل إلا أدكتيد ريا خيبر وياني بساعتهم بنان كوضة إن شاء الله إن شاء الله حتى تنزل إلا أدكتيد بساعتهم بنان كودي ويان ثم ادعوهم دقال هوريها كقبل لابنه ثم ادعوهم أغير إلى الإسلام أغير
وأخبرهم أشك بما يجب عليهم وحواجبك أدشوذ ومن حق الله عز وجل إلهي حقي سبحانه وتعالى فيه. فوالله بان كدارنا يا لأن يهدي الله بك رجلا واحدا إن إلهي سببك أقدق أذيك هداية قف هل قف أكلية سببتي سين إلهي أذيك كوغو هنونيو أي خير لك وحكاغا وناك بدنتها من حمر النعم قيلي قد قدودنا كاسا كاغا خير بدن marka waxay ku tusinaysaa fadliga ay leedahay qof inuu ilaahay adiga sabab kaaga dhigay hidaayadiis yaduukuna macnaheeduna waxa weeyaan yakhuuduna waxay isla dhaxmareen oo la isgaargaarsiiyay oo wallahu subhanahu wa ta'ala alam